ومشرع تاجن قدوميها أوركا سحفيتا قبل كمدو ورين وحان halkan uga mahad celinaya marti sharafka qiimaha leh ee habka maamuuska leh maanta halkan ku sugan guddiga doorashooyinka halkan maanta noo qabto munaasabadani sharafta leh ee maanta halkan anagana goobjoogayaasha u nahay waxaan sidoo kale aad ugu mahad celinayaa musharaxiinta ila tartamaysa maanta halkan ayagu mid kasta ku haminayo inuu halkan asoo ku shaqaaro waxaan sidoo kale u mahad celinayaa xubnaha saxafiyiinta maanta masiirkooda ka tashanaya isla markaana u diyaarsan inay doortaan codkooda u hibeeyeen hoggaanka labada sano ee soo socota halkan hoggaamin doona sidoo kale waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan dadka jecel inay guuleystaan saxafiyiinta gobolka mudug mudanayaal iyo marweyn waxaan halkan u soo istaagay inaan inta badan qumbeeyo uma soo istaagin balse waxaan u soo istaagay inaan u mahad celiyo dadka ka qayb qaatay guushan taariikhiga ah ee maanta halkan ay wada joogo anigoo si hufnaan ah uga shaqayn doona insha allahu tacaala haddii hoggaankani la ii doorto dhanka saxaafadda mar waliba waxaan uga soo shaqeeyay duruufo kala duwan oo aad u adkaa isla markaana aan u adkaystay maantana i soo gaarsiiyey inaan halkan ku hamiyey inaan noqdo hoggaanka saxafiyiinta gobolka mudug isla markaana aan ka taliyo masiirkooda labada sano ee soo socda waxaan markasta u diyaarahay inaan soo dhiciyo xuquuqda saxafiyiinta gobolka mudug anigoo geed dheer iyo geed gaaban u fuulaya midda uga maqan dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleeta dowlad goboleedka galmudug maanta masiirkiina wuxuu ku jiraa gacantiina guushiina haddii allaha awoodda la ogolaado waxaana markasta ku haminaya inaan guulaysto idanka ilaahay haddii allaha awoodda la ogolaado haddaba anoo ka duulaya aragtidaas hufnaanta ah waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina igu hibaysaan insha allahu tacaala haddii allaha awoodda la ogolaado isla markaana waxaan aad u aaminsanahay in aad jeceshihiin in aad ka tashatiin aayihiina isla markaana aad noqotiin dad dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta u coday waxaan markasta ku dilaalayaa sida habsamida ee daacadnimada taleehan tahay inaan saxafiyiinta gobolka mudug ku hoggaamin doono haddii xilkani maantay aan ku hamiye aan ku guulaysto idanka ilaahay waxaan diyaar u ahay dhammaan saxafiyiinta gobolka mudug ee halkani ku sugan inay wax bedel weyn dareemi doonaan haddii aan ku guulaysto maantay hoggaanka saxafiyiinta gobolka mudug boqolkiiba boqol waxaan diyaar u ahay natiijada halkani ka soo baxda waxaan u tanaasulayaa hoggaanka wanaagsan iyo midnimada saxafiyiinta gobolka mudug waxaan diyaar u ahay iguna garab siisaan codkiina maanta inaad igu hibaysaan qof weyn oo ballan qaada waa taqaaniin insha allahu tacaala waana markasta waxaan jeclahay inaan mowqifka saxafiyiinta gobolka mudug inaan ka tali saxafiyiinta inta badan waxaa lagu dhaliilaa inay dhibaatooyinka soo tabiyaan waxaan samayn doonaa isku duubni saxafiyiinta inay qaataan kuwa la ammaano had iyo jeer ay noqdaan idanka ilaahay hadduu ilaahayna guuleeyo dhammaan dadka ka qayb qaatay ee jecel hadafka saxafiyiinta gobolka mudug guusheedana isla u garab taagan mar kasta waxaan aad iyo aad u bogaadinay inay shaqadan nala sii garab gaabaan anigana waxaan diyaar u ahay qofka hoggaamiyaha ee haddaana guulaysa halkan ka soo bixi doono sidaan kuwa hore la soo shaqeeyay inaan si lamid ah usii garab istaagi doono waana asalaamu calaykum.